rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi allah yah axaadiistu way kala dardaran yihiin caawa kuwa ka kale waa ka weyn yahay almuslimu muslimka waxa weeyaan muslimka xaqiiqada ah dhabta ah waxa weeyaan adduun iyo aakhirana liibaanaya man salima almuslimuuna ka ay muslimiintu ka nabadgalaan min lisaanihi wa yadihi carabkiisa iyo gacantiisa islaamka gacantaada ha ka nabadgalaan oo ha ka nabadgalaana carabkaaga ha laga nabadgalo caawa carabkaynu haynaayo carabkaaga ha laga nabadgalo carabkaaga ilaali kelmad iska ilaali maxaad u malaysay markaad caaytamaysid markaad ilaahay caayaysid markaad rasuulkiisii caayaysid diintiisii caayaysid khalqigiisii caayaysid maanta o dhan xan iyo balaayo iyo aad ku jirtid oo hadal xun iyo maahane wax kale carabkaaga aanu ka soo baxaynin imise goor ayaad cadaab ku dhacaysaa adigoo nool markaad dhimatidna maxaad u malaysaa wallahi garan maysa xijaab baa ku saaran laakiin waxyaabo fara badan oo aynu qabanayna foolxumadooda haddii xijaabka laynaga qaadi lahaa waanu ka carari lahayn xadiiskii halku dhigeena ahaa wuxuu ahaa man kaana yu'minu biاllahi waاlyawmi اlآakhiri falyaqul khayra aw liyasmut man kaana yu'minu biاllahi waاlyawmi اlآakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofkii ilaahay iyo maalinka qiyaame rumeeyo hadal wanaagsan ku qowl oo hadal wanaagsan dheh hadal wanaagsan dheh waquluu linnaasi xusnan so aayadii kale ma ahayn waquluu linnaasi xusnaa war dadka waxba wanaagsan u dhaha soo ma ahayn dadka marka waxaa laga rabaa haddii aad khayr haysid sheeg khayrka haddaad ogsoon tahay kelimaddaa ku dhawaaqaysid khayr inuu yahay dheh rasuulkaa ku amrayee dheh ha qarin hana la baqin haddaadan haynin aw liyasmut ha iska aamuso taasaa kuu khayr badan marka xanta waxyaabaha keenayo waxaa ka mid ah suu daniga qofkii intaad aragtay meel xun baad ku aragtay qof xun buu la socdaa si xun baad malaysay markiiba shaydaan baa qalbigaaga wuxuu ku soo tuurayaa male xun soo arki maysitaa kiila socoto fiiri warkan meeshuu fadhiyo waa maxay war ama khamrigu cabayaa war wuxuu afka ku haysto waa maxay war meeshuu taagan yahay yaa ku dirsaday adiga waxaasoo dhan suu danni marka xanta horteed waa inaad ka fogaataa walaalkaa inaad u malaysid si xun inaad u malaysid u cudurdaar walaalkaa rasuulku wuu kaaga digayaa marka maaha xunuu kaaga digayaa si uusan kuugu jiidin xan rasuulku wuxuu ku leeyahay iyaakum wadann faina adanna akdab alxadiis war ka fogaada xanta malaha ka fogaada walaalkaa si xun ha u malaynin meeshaa doonto ku arag u cudurdaar walaalkaa wax walba afkiisa ha ka soo baxaana wixii aad maqashid u cudurdaar walaalkaa u cudurdaar adiguna insaan baa tahay sidiisoo kale waad noqon kartaa u cudurdaar walaalkaa iyaakum wadann faina adanna akdab alxadiis sheekatan ugu been badan weeyaan allah malaha waa sheekatan ugu been badan weeyaan beenteeda ugu daran haddaad doonaysid teeda ugu daran beenta haddaad doonaysid waa walaalka oo aad si xun u malaysid si aadan ogeyn aad u malaysid weeyaan ilaahayna wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiira min adann dadka alli inaga rumeeyo ka fogaada in badan ka fogaada in badan firu ilaahay siduu noogu weynaynayo in badan oo male ah ka fogaada annagana 24 saac waxa aan ku dhawaaqayno oo dhan iyo waxaan sheegayno male weeyaan wallahi waxay ila tahay waxaan u malaynayaa maanta dhan madaxaan xoqanaynaa waxaan leenahay waxaan u malaynaynaa allah waa wax aynaan hubin
اجتنبوا كثيرا من الظن محاوعي ملهرن ودن رن نقن مهيو إن بعض الظن إثم ملاها قاركي دب ويان ملحنو يكون جيلة هياه يا رسولك فوق الوليه صلوات ربي وسلامه عليه فإذا ظن أحدكم فلا يحقق فإذا ظن أحدكم فلا يحقق وهدو ملايو متكين walaalkii si xun uu u maleeyo yaanu xaqiijinin war baa lagu sheegahayaa khaasatan islaamaha u badan maanta dhan telefoonka dhegta u saaran habeenkii oo dhan ilmihii baa waxaa laga soo kaxeeyey Europa iyo America waxaa la keenay wadamadii islaamka markaas waxa weeyaan odagiina uu maqan yahay dee uu soo shaqeynaya iyagina halkan ay joogaan ilmihii marka iyaga mas'uulka ah iyaga aabbo u ah iyaga hooyo u ah mas'uulkoodii weynaa ee tarbiyada ahaa ilaalada ahaa akhlaaq wanaajinta ahaa waxbaridda ahaa wixii oo dhan waxa weeyaan waxa u sifuulay mas'uuliyadii aabbaha labadiiba iyaga isku haya arintoodii way cuslaatay iyagiina waxaa la doonayaa inay wax bartaan wixii oo dhan way ka fogaatay ilmihii intay macallin u dhiibto oo ay meel ku ogaato ama madrasa maaragtaa khayr aan lahayn ay geyso ayaa iyadii har iyo habeenba dhegta waxaa u saaran telefoonkan bilaajka ah الله مركاسا مانتا محال يري halkee wax la maxaa la sheegay markaasa tan waa taas kale u yeertii kale markaasa waxay mas'aala la yiri islaamiya la yiri ana soo hubsanaya ana soo mas'aala sameeyay bilaaya mas'aala soo yeelay mas'aala soo yiri ana soo xaqiijinaya wallahi inaan soo xaqiijinaynin arrintaasna laguma saarin mas-uuliyadaadiina waad ka tagtay waad dayacday wax aan lagu dirsanin ayaad aaday wax soo xaqiijin mayside waxna soo hubsan mayside nafsadaada baad cadaab ku soo hubsanaysaa marka iyada ah yaa ku dirsaday inaad soo hubsatid yaa ku dirsaday cawraadka dadka inaad raacraacdid malaha inaad raacraacdid dadka inaad dabageshid yaa bodyguard ka dhiga adiga lagu ilaalinaya oo raqiib iyo catid garbahaaga saaran oo ilaahay uu ku dirsaday oo ilaahay maaragta uu yeelay oo carabkaagii iyo gacmahaaga iyo lugahaaga maaragta wax walba aad qabanaysid ilaalinhaye yaa ku dirsaday adiga yaa ku dirsaday cid ku dirsaday malaha rasuulku wuxuu leeyahay fa idaa dhanna ahadukum fala yuhaqqiq war hadduu midkiin maleeyo walaalkii si xun uu maleeyo yaanu soo hubsanin yaanu soo xaqiijinin yaanu dabagelin dambi weeye ka fogaada ya marka haddii telefoonka gabadha ay kugu sheegto oo ay ku tiraahdo sidaasaa la yiri ya sidaasaa la yiri sidaasay tiri sidaasuu yiri waxaad tiraahdaa naga daa kaa warkiisa ya naga daa warkiisa naga jooji wax aynaan shuqul ku lahayn yaynaan gelin inooga waran aakhiro qabriga gadaashii ka waran qabriga mataqaanaa waxa dhacaya geerida waxa ka dambeeya adiga arrintii leexi xag ilaahay u leexi ya xag ilaahay u leexi u sheeg xanta inay xun tahay u sheeg ila raaca qofka inay xun tahay u sheeg dacwadda halkaas adiga laga rabaa inaad ka bilowdid inaad ka anbaqaadid aad dacwo ku fulisid tabliiq aad ku baxdid telefoonka aad dhegta saaranaysid 24 saac wax walbo afkaaga ka soo bax waa la xisaabinayaa waa inaad ilaalisaa khayrkana aad u barisaa ya khayrka aad ku barisaa Umar radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab واتقانان وحويه وحيري التمس لأخيك 70 عذرا ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا الله هذا بجيس المدام يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه التمس لأخيك 70 عذرا الله وراك أورادي حدي وراك أوكاسو دار ور أما أد مقشد السوى سحب أهد ليا أعذر دار وراك تدواتا جير أعذر دار بليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدواتا جير إسلام باكوتي مد خير بيشاه مركاسي كنت رهب لا يسلاسي كل هيد هكول بولي سيفته هنا حناقن أوركن وحون هو قبنن تدواتا جير بكليه عمر بن الخطاب ولا شاء أعذر دار تدواتا جير أعذر دار ولا شاء وتدواتا أنك إلهي بأن كل شيء هل مرنا أعذر دارنا
ya mise seeftan galka markiiba kala baxnaa ya balfiri 70 jeer walaalkaa u cudurdaar ha u malaynin buu leeyahay kelmad walaalkaa afkiisa ka soo baxday walaa tadunanna bikalimatin kharajat min akhiika ilaa khayr maahane wax kale ha u malaynin adigoo ogsoon inay xun tahay khayr u malee hadalka sida wanaagsan ilaa hadalku waa margi ya hadda dhankii loo jiido unbuu noqonayaa dhanka wanaagsan u qaad anigoo ogsoon carabka shaydaanka nafsada hawada wixii oo dhan dhanka xun inay u jiidayaan ya anigoo ogsoon adiga dhanka wanaagsan u qaad ha u malaynin buu ku leeyahay cumar ibn alkhataab radi allahu canhu walaalkaa kelmadda ka soo baxday ilaa khayrun u malee buu ku yidhi khayr mahane wax kale ha u malaynin adigoo heli karaaya khayrka uga heli karaaya ma aragtaa inaad u qaadid war haddaabad heli karaysid dhanka khayr kale inaad u qaadid hadalka walaalkaa wax xun ha u malaynin u cudurdaar 70 jeer u cudurdaar walaalkaa ilaah baan ku dhaarshay haddaynu qof walbaa walaalkii gabar walbaa walaasheed hadday u cudurdaari lahayd oo kelmadda ka soo baxda ee xun dhanka khayrka leh yaa haddii aan u qaadi lahayn ama ay u qaadi lahayd maanta sida loo kala tegi miyaa loo kala tegi lahaa dhibaatada ina haysata miyaa ina haysan lahayd 70 jeer u cudurdaar baa lagu leeyahay ibn Sirin raxima allahu canhu wuxuu leeyahay isagana idaa balagaka can akhiika shayun aad u dhegeyso idaa balagaka can akhiika shay faltamis lahu cudra allah walaalka haddii wax kaa soo gaaraan shay xun shay aad qoonsanaysid shay nafsada aanay jecleen haddii walaalka uu kaa soo gaaro faltamis lahu cudra cudurdaar u raadi qiil u raadi sabab u raadi fain lam tajid haddaad weydid qiil aad u weydid 70 jeer u raadi haddaad weydid wax qiil ah kelmaddaas uu walaalkaa ku yidhi haddii aad dhanka khayrka leh wax uga weydid ya aad u dhegeyso aad uga weydid faqul ibn Sirin baa